macallin jaamacadeed oo ku jira galaas ayaa waxa uu jeebkiisa ka soo bixiyay $50. galaaska ayaa waxaa fadhiisay 200 oo qof. kadib ayaa waxa uu dhahay imise qof ayaa jecel lacagtan. dhab ahaantii 200 qof ayaa gacanta wada taageen. macallinka ayaa markaas yidhi waa arrin xiiso leh. kadib ayuu yidhi inta aanan idin siinin ii oggolaada hal su'aal. lacagtii ayuu qabtay 2 jeer ayuu laalaabay. haddana waxa uu yidhi imise qof ayaa raba hadda. weli 200 qof ayaa gacanta taagtay. haddana waxa uu yidhi aan tijaabino si kale. lacagtii ayuu si daran isugu jajabiyey. markaas ayuu yidhi imise qof oo idinka mid ah ayaa rabta lacagtan. weli 200 qof ayaa gacanta taagtay. ugu dambeyntii lacagtii ayuu dhulka ku tuuray. cagta ayuuna saaray. saa'id ayuu ugu istaagay, weliba si foolxumo ah. kadib ayuu soo qaaday, waa uu fidiyey, ayuu ku yidhi imise qof ayaa hadda rabta lacagtan. 200 qof ayaa gacanta taageen. macallinkii ayaa markaas yidhi waxaad barateen cashar aad u muhiim ah. si kastoo nolosha ciriiri kuu geliso, si kastoo aad fursad u weyso, si kastoo aad shaqo lagugu diido, waa lagu rabaa. maxaa yeelay waxaad ka qiimo badan tahay $50. qiimaha noloshuna mar walba way jirtaa. qiimaha noloshu kama timaado qiimaha dharka aad xirantahay, ama lacagta ku jirta akoonkaaga, ama shaqada aad haysato nooceeda. waxa aan jecelahay in aad fahanteen in ay muhiim tahay in aad dhistid noloshaada beddelka aad dhisi lahayd CV-gaaga. sanadkii 2009 gudihiisa, injineer leh khibrad 12 sano ah una soo shaqeeyay shirkadda Yahoo ayaa waxa uu shaqo ka dalbaday shirkadaha Facebook iyo Twitter, balse labadii shirkad waa ay soo diideen dalabkiisa. 5 sano gudahood waxa uu ku sameeyay application laga helay $19 bilyan. rumayso ama ha rumaysan, ninkaas waxa uu ahaa Brian Acton oo ah soo saarihii WhatsApp. waxaa jira dad badan oo laga ceyriyay waxbarashadii sababo la xiriira dhicista imtixaanka. waxaa jira dad badan oo loo diiday in ka badan 30 shaqano oo ay apply gareeyeen, balse maanta waa role model dadku ku daysadaan. muhiim maaha in aad qurxiso CV-gaaga, balse waxaa muhiim ah in aad qurxiso noloshaada.